qofka maanta u socdo wuxuu rabaa luf dowlad khatar waaye halis waa amnigeeda ku tahay haddii la dhiibo madaxweyne meeshaan ciidankooda beri waa baxayaan waa ku imaanaya haddii lagu yidhaahdo ay ku koltaas ku dhahaan dee waa lumaysa yaa nabad rabin Ethiopia nabadeen rabtaa annagana nabadaan rabnaa dadka aan nabadda rabin marka waa dadka Soomaaliya godkii 30 sano ay ku jirtay inay ku jirto raba waxyaabaha aad aragteen oo tripartite ka ah waxay tahay in geeska Afrika nabad lagu wada noolaado faragelin dambe Soomaaliya in aan noola imaanin oo wax alla wixii aan kala faa'iideysan karaan kala faa'iideysano ilaa muddo dheer yaan si dhibayn oo jaajuusiin noo soo dirayeen oo nagu dhex jira marka jaajuusintii inaan shaqalaan ku ridno Soomaa annaga aan raahno wax dhankeena idinkaga imaanaya malaha aan wada noolaanno marka Ethiopia iyo Soomaaliya kaliya maaha ilaa Eritrea xitaa waa gaarnay Eritrea waxaan ku gaarnay Eritrea waxa weeye waa dal runtii aan wax badan ku leenahay oo noo ogsoon inaan wax badan ku leenahay laga bilaabo 60kii ilaa maalinta iyaga xorriyadda qaadanayeen waxa ku socday dhaqaale Soomaali ee leedahay taxpayerska dadka canshuurahooda in la hubeeyo in dhaqaale la siiyo si ay u helaan xorriyadooda bini aadamku isku mid ma aha dad badan wax loo taraa jira oo annagu haddii dee 60meeyadii iyo 70meeyadii intii dowladda Soomaaliya xoog lahayd wadamo badan yaan wax ka horeen laakiin waxba nooma oga laakiin madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki wuu aaminsan yahay hadday Soomaali jirin inuu soo xorriyad lahayn oo wuxuu nagu yiri aniga wafdigeen dadkiisu wuxuu u sheegaa in xorriyadooda ay dhameystirneen inta Soomaaliya ay dhibaato ku dhex jirto ama ay qaybsan tahay wuxuuna diyaar u yahay inuu abaalkii gudo marka Soomaaliya inaan rabno abaalkii iska gud marka meeshaas way meesha saddexda qaybood uu ka soo galay marka ninaan abaal ku leenahay oo Soomaali abaal ku leedahay ogsoon inaan abaal ku leenahay iyo Prime Ministerka Abiy oo leader cusub ah oo doonaya geeska Afrika afkiisana iga yiri wax alla wixii aan haysanay waxaan ku gadnay hub ma doonayno hub kale inaan iibsano meeshaan kaara ka iibsan lahayn waxaan ka iibsanaynaa tractor cagaf waxaan u soconnaa Soomaaliya oo sharaf leh yaan u soconnaa ninka aan sharafta rabin muxuu rabaa marka ninka aan sharafta rabin wuxuu rabaa maanta kaliya rabaa laakiin annaga waxaan u soconnaa biri iyo 100 sano dambe yaan u soconnaa qofka maanta u socdo wuxuu rabaa luf wuxuu rabaa mashruuc 30 sano lagu soo jiray qofna wax ma tarin shacab weynii Soomaaliyeed wax ma tarin dalkiina wax ma tarin sumcadeena wax ma tarin marka majidkii aan ognahay aan ku fashilnay lagu wada fashilmay miyaan ku soconaynaa marka haddii shacabka dadkii aan idin sheegay siyaasiyiintii oo ayaan dhaweyd aan ku iri waa xiraaqsan yihiin oo qofka hadduu xanaaq wax walba iska leeyahay marka qofka hadduu xanaaqo wax walba iska leeyahay haddee waxay cagaha ku soo maxaa qaateen qabiil waa shaqeyn waay koox waa shaqeyn weyday haddaan inaan raba aan guulaysto dadka igu hareeraysan saan sheega waay guushayda waxay ku jirtaa inay yihiin dad ama aniga iga aqoon badan iga waaye aragsan iga karti badan wax i dheer inay yihiin
si ay wax ugu soo kordhiyaan qofaan waxba ku dheerayn dee maxaad u sheegaysaaba de wuxuu kugu soo fiiri mucdilooyin iyo mashaakil iyo problem iyo dhibaatooyin caqabadaha miiskaaga soo fuulay hadduuna qofka ra'yi kugu biiri karin oo tusaale ka soo qaad qalbi dhagaxa la soo qabtay madaxweynihii Soomaaliya tahay waa lagu hor keenay waxaa la yidhi muwaadinkan Soomaaliyeed ee saasaa la soo qabtay dadka kula talinaya hadday ku dhihi karin madaxweyne muwaadinka haddaa dhiibto 1 2 3 4 dhibaatay leedahay ay ku dhahaan madaxweyne wallahi bilaa dowladda Itoobiya anaga ma ka hor imaan karno dowlad khatar waaye halis waa amnigeeda ku tahay haddii la dhiibo madaxweyne meeshaan ciidankooda beri waa baxayaan waa ku imaanaa haddii lagu yidhaahdo ay ku kula talaan ku dhahaan dee waa lumaysa laakiin dadka kula talinaya hadday ku dhahaan madaxweyne arrintan waxaa ka imaanaya 1 saan 2 saan 3 saan 4 saan dhinaca kale ay ku dhahan maya Itoobiya xaaladda ku jirtaba Itoobiya hore ma aha waaba kala socotaa kacdoonaa ka socdo tabarteeda sidii hore ma aha baqdintaana ka muujinaya ma aha waxa u baahan tahay dad aqoon leh oo Itoobiya la socdo oo gobolka la socdo inay kula taliyaan haddayse kula talinaynin oo wili Facebook kala talinaya wixii ay yihiin dee waa lumaysaa dhibaatadaana ku leedahay wejigaas quruxda badan haddaad soo suuraysaa laga filan karaa hadda anigu doodaan ku qaba jiray Muqdisho oo kaleeta ah dhalinyarada la hadli jiray gooni dowladda ma bahaynba sida civic education dowladnimada waxa loo baahan yahay meesha la marayo marxaladda aan joogno of course marka dowladdu waan dhaliilay dowladdu inay dhibsato ma waa inay caadi u aragtaa ayagana waa inay timaa hadda dood ay fariisaa hadda su'aal adag ay weydiinaysaa dhalinyarada waa ila doodayaan ama madaxda dowladda Soomaaliyeed fiiri dhaqanka la bedelay kamid tahay hadda madaxweynayaasha ay ka horeeyay hadda madaxweyne farmaajo ku horeeyay ama madaxda ka horeysay dadku way hor imaan jireen waa la dhaliili jiray indhaha faraha laga geli jiray ma garatay of course boqolkiiba boqol dhaqan soo jira waayaba waa la joojiyay hadda maxaa loo joojiyay waxaan rabnaa madaxda dalku inay dadka hor timaado ay su'aalo weydiiyaan oo ay la doodaan oo la yidhaha waxaas maxaa ka qabatay madaxweynayaasha qaar waxaa dhihi jiray casila dadka inta hor imaada hortooda markaasay isdifaaci jireen waxaan rabnaa dhaqankii haddii dhaqankii markii ay dowladdii dumisay oo annagan aan aamusno miidiyihiina dabcan waa ognahay wax ka socda dhexdiisa hadda iskaga ma sheekeynayno la quraan saaray si kale ma dhahaye warbaahintii la quraan saaray may waa la quraan saaray may waa la quraan saaray iska dhaaf waa quraan saaranta warbaahintii waa la arki la sidii xilliyadii hore ma waa quraan saaranta warbaahintii oo social media loo kireeyay wax la yiraahdo electronic maxay dhahaan armis la kireeyay oo qofkii hadlaaba boqolaal qof dhalinyaro ay ku soo yaacaysaa markiiba fiiri factiska aan hayno dadka aan kala xishoon u sheegno waxa kamid ah waxaan haynaa numberka u qoran dawladdan oo social media uga shaqeeya inay qofkii dawladda ka ra'yi duwan ataagaan ay cambaarayaan oo la beegareeyo oo lacagta laga siiyo waa haynaa dakhligii canshuurta dawladda Soomaaliya dadka masaakiinta laga qaado yaa waxaa lagu finance gareeya oo lagu maalgeliyaa in electronic wax la yiraahdo armis in la sameeyo la yiraahdo dadkan ay xagga ku duula sidii raxan shinni camal qofkaas maanta wax sheego ku duula kaasa wax sheego ku duula Cabdiraxmaan inkasta waqtigu aad yahay saaxiibadan aan jeclaan lahaa inaan siiyo waxaad sheegtay sheeko bulshada Soomaaliyeed muddo ay wado ku aadan in dad lacag lagu siiyo internetka in dawladda ay ku difaacaan kuna amaanaan haddii ka xisbi ahaan iyo mas'uul ahaan la yiraahdo soo bandhiga maxaa cadeymaha bulshada u soo bandhigi karaysaa ay afkaartaada ila saxsan laakiin wuxuu dhahay dawladdan u shaqeeya waxaan ku qasban oo dhahay inaan ku dhaliilo wuxuu dhahay waa leegala xisaabtama oo dhahay marka mudan wuxuu dhahay dhaliisha u malaynayna oo dhahay inaan ka soo horjeedo duruufta u kalifaysa anagu ila soo hadlay intaas afadis ka badan oo keeni kara ma jiro fiiri dhaqan xumaday ka mid tahay fiir awal waxaa jiri jiray dad qaabalayaal dagaal ah oo dadka ka caaya meelaha oo qabiiladooda u heeliya anagoo reehebelahay baabale meesha ku haya hadda social media waxaa loo bedelay in dadkii incitement lagu sameeyo dadkii lagu aflagaadeeyo fiiri koo horta waxay ku qaldan tahay waxaad xoojinaysaa waa dhaqan civility ilbaxnimada islaamnimada ka soo horjeedo ah in wax la caayo fiiri qofka aan inuu dhaliil dhib kuma qabo adiga cabdishaciis inaan dhahdo ra'yi intaan sheego ra'yiga waa ka duwanahay saanan qaba waa positive laakiin saasaa tahay adiga shakhsiyan haddaa kuu jaraaxeeyo ninkaas hadday lacag waxaas lagu siinayo dowladdu ma waxay ka qayb qaadanaysaa dhismaha nidaamka la yiraahdo civility ilbaxnimada ma ka qayb qaadanaysaa mise waxay ka qayb qaadanaysaa incitement iyo xumaan dhiirigelinaysaa